إلهي ما مهدل الحمد لله. ثم وحان أمهد علينا يا قدقي سواء أبابولي حفلة دان قروح بدن iyo akhyaarta faraha badan ee ka soo qayb gashay rag iyo dumarba ay ugu horeeyaan safaaradda Soomaaliyeed ee South Africa iyo council-aha xaafadan aan deganahay intaba iyo marti sharafta kale ee gobolada kale ka timid dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waana idin soo dhaweynaynaa. intaas kadib xafladan sidii horeba aan u maqalnay oo hore dhaceeda nala kugu sheegay amaba aad boorarka ka aragtaan waxay ku saabsan tahay madaxweynaha xaflad soo dhaweyna weeye madaxweynaha Soomaaliya ee cusub iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo dhaweynayo doorashadooda. أسأل أكتيهن مددر ودن كأني سوماليا وحكي جرتي دورشد داهضي ما أنت إلهي مهديس وحاءه إن برلمان كي ولما يسترين هاي لبدي سي أقل أي جدون ليهين مدحوينا عصب للدورتي وحيد لمنا ولا لما يستر دونا مر لبعض يمرسد حاله حن بقادين إنا وأنا همبليه يبقادين ودرينا مدحوينها عصب حسن شيخ محمود يوجدون كلبلا أقل برلمان كالصوماليا يبرلمان كدمانتود أنت دولة عصب أردن دمانتود وأنا سود وينينا وأنا وهمبليينينا عاوة برنامج كما برنامج وين شركة هرانا لكوكو فري وقدميه جاليد إيوه أخيار كلام وفرتي لكن وحا ugu muhiimsan oo aan meeshan u joogno caawa waa xafladaas bogaadinta iyo soo dhaweynta oo aan ku soo dhaweynayna madaxdeena cusub laba arrimood ayaa xafladeena caawa mamnuuc ka ah oo aan rabnaa in ay ogaadaan dadka halkaan imaanaya hadlaya inay ku tala galaan ay tahay midda koobaad waxay tahay nidaamkii hore ee Soomaaliya ka talinayay ee madaxdan cusub madaxdii ka horeysay hadal lagu duraayo oo laga daba tuuraayo oo xumaynaya taariikhdooda iyo shaqadoodii lagama ogola inay meeshan in laga sheego waxa sidaas oo kale aan la ogolayn oo aan maaragtay aan meeshan in laga sheego aanan rabin xafladan soo u qurxoonaato tala qaloocan oo lagu duraayo madaxda cusub in halkan laga sheego iyadana lama ogola madaxdeennii hore waxay soo qaban kareen waa soo qabteen aad u mahadsan yihiin madaxda hadda joogtana wax weyn baa laga filayaa shaqo badan baa u taal ayadaasaan ku garab istaagaynaa ayadaasaan ku soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay shaqadoodu u fududaato waddankeennii oo israacay oo khilaaf la oo 5 sano ama 4 sano ka bacdi markii electionka labaad la gaaro meel fiican soo gaaray baan ilaahay ka rajaynaynaa sidaa daraadeed madaxdii hore ee waddanka soo hogaaminaysay madaxdeena weey waana soo hogaamiyeen waxay qaban kareenna waa qabteen madaxda haddana waa soo dhaweynaynaa waana bogaadinaynaa waana u hambalyeeynaa aad u mahadsantiin waa idinku dheereeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh